Qaybtan waa qaybtii lixaad sida Bitcoin iyo Perfect Money waxaa sidan lagu sarrifto iyo Tron waa kasoo hadalnay. Hadda waxaa waaye marka EFC Plus to OneXBet haddii aad rabto OneXBet aad haysato EFC Plus iyo haddii aad OneXBet haysato EFC Plus-na aad rabto qaabkee ugu sarfanaysaa marka qaabka Somali Sarif ku dhufanaysaa Play Store ka kasoo degsan kartaa sida hore idinku sheegayba. Okay, kadib halkan ku dhufaysaa select currency EFC Plus haystaa leedahay kadibna select currency OneXBet raba leedahay kadib meesha $1 daaratid $2 daaratid $3 daaratid meeshaas oo gelinaysaa saddex kuleysa waxba lagama jarnaa kadib exchange ku dhufanaysaa kadibna halkan ID OneXBet kaada gelinaysaa kadib confirm exchange ku dhufaysaa kadib waxaa la konkan copy and paste kadibna ku dir lacagta ama mobile yaris hadaad isticmaalaysid waa ku qori kartaa meeshan kadib meeshan imaaw kadib halkan paste ku dheh $3 $3 ku qoraysaa meeshaas haddii $2 ay ku diros $2 $3 meesha ku qoro kadib meeshan okay dheh okay taawo kadib hubta online lacag ku diro Somali Sarif pinkaada gelinaysaa kadib lacagta markaad dirtid halkan nambarka lacagta kasoo dirtay gelinaysaa kadib submit aad qoraysaa kadibna halkaas hadda waa ka sarfatay wixii ka dambeeya lacagtaada akoonkaada ka fiirsanaysaa oo kaliya kadib meeshan pending waaye kadib waxaa lagu soo approve gareynaa kor soo jiidaysaa refresh dhaysaa waa kana approve waa lagu approve gareey saas kadib waa ku shubatay lacagta kaliya waxay nagu qaadatay inaan lacagta ku shubano 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo meelahaas camal qaabka loola baxana home-ka taabo kadibna EFC Plus haystaa marka oo halkan ka sarfanaysid la bixi kartaa haddii aad meel kale ka sarfatid lama bixi kartid select currency ku dhufo kadib OneXBet ku haystaa dheh select currency ku dhufo EFC Plus rabaa dheh kadibna meeshan waxaa ku qoraysaa intaad rabtid $5 dal bixisid $2 dal bixisid $5 camal inta wuxuu leeyahay waxa ka jarna camal laakiin wax kaama jarna dhooti lacagtaasi toos ayaa lagu soo diri doonaa waxba lagama jari doono okay kadib exchange ku dhufanaysaa meeshan nambarka lacagta lagu diri lahaa aad gelinaysaa kadib confirm exchange aad ku dhufaysaa kadib halkan copy leedahay street kana lacagta ku diraysaa ma fahantay city Muqdisho waaye Banaadir OneXBet kaas u galaysaa kadib isdiraa taabanaysaa isdiraa markaad taabatid qaabka loola baxay waa taqaanaa sooma kadib OneXBet cash ku dhufanaysaa waa kana OneXBet cash ku dhufaysaa marka qaabkaas u dhufatid halkan lacagta meeqa la bixisaa meeshan gelinaysaa $3 data iyo waxaas iyo data kadibna select currency aad dooranaysaa kadibna meeshan paste data yani ku soo bixina laga yaabaa kii copy soo dhaaday ku soo baxay ma fahantay waxaa sameyn kartaa Somali Sarif la qori kartaa kadib soo ku soo bixi doona waxaan dir hadda Somali Sarif magacaad la soo fiiri kadibna ku qorlay inaa ku qortay soo meeshan inta waxaa wato inta city waaye sorry Muqdisho Banaadir dheh city waaye street ka arabna meeshaas city ay gelinaysaa halka street ka gelinaa waa kana oo Somali Sarif gelinaysid waa kaas oo ku soo baxayba marka bast ku dhaad street ka ku soo baxay kadib street kale ku dhufo kadibna confirm exchange dheh marka exchange dhaad kadibna code-kaada ayaa gelinaysaa code-kaada marka confirm dhaad oo laga aqbalo code-kaada waa kasi meesha soo copy gareynaysaa confirm oo dhaad yani sawirka camal ku soo baxayo tusaale waa kadib get-kooda ku dhufanaysaa kadibna code-kana ku soo baxayo afartan code ayaa laga rabaa inaad gelisid afartaas code aad gelinaysaa ma fahantay TX2U camal TX2U ama koob baa soo dhaaf kartaa kadib meeshan ID-gaada OneXBet lacagta kasoo dirtay gelinaysaa fadlan ID-gaada iska hubi intaadan lacagta dirin oo
oo aad dhammaystirin systemka. ID-ga markaa saas u gelisid oo saxda ah submit aa leedahay. Kadibna hadda wixii ka dambeeya EFC Plus la sugaysaa. Kadib meesha waa kana pending waaye koraa soo jiidaysaa. Kadib EFC Plus-ka qaabkaasay kugu soo dhacaysaa. Waa kana profit. Ma fahanti haddii caawinaad u baahatid chat-iskana kala xiriiri kartaa. 5 daqiiqa nagu qaadat inaan waxyaalahan dhan aan ka sarifno iyo aan la baxno. Qaabkaas le waaye. Home-kana taabanaysaa hadaa rabtid. Akoonka hadaa rabtid halkaas kor aa ku dhufanaysaa. Sidoo kale linkiga lacag waa ka samayn kartaa. Halkan linki hadaa ku dhufatid linkiga lacag waa ka samayn kartaa. Dadka kuwa dadka u diraysa qof walba iska diiwaan geliyo mar walba oo lacag iska sarifto adana commission akoonka balance ku soo dhacayo. Akoonka markaa galis login ku dhufo. Login markaa ku dhufatid waa kana meesha balance lacagta ku soo galayso waa tana balance oo qofka iska diiwaan geliyo. Waxaan lacag waa wixii ka sarfatay waaye. Qaabkaas waaye. Halkaas taawo login markaa dhis qaabka la iska diiwaan geliyo hadaa ka seenin log out ku dhufo. Yani akoonka ka baxday. Akoonka hadaa galisidna login aa dhihaysaa. Hadaa iska diiwaan gelin register aa ku dhufanaysaa. Qaabkan aa la iska diiwaan geliyaa. Meeshaan username-kaada ayaa gelinaysaa. Username-ka magac yari xarfa yaris ahaadaano. Xarfa yaris ahaadaano ma fahantay. Yani capital ha ka dhigin halka xaraf ugu horeeyo. Meeshaan email-kaada gelinaysaa. Meeshaan wadanka joogtid waa ku soo saara. Ma fahantay Canada oo dhow yani VPN isticmaalo Soomaali markaa joogtid Soomaali ku soo saara. Okay. Kadib meeshaan number-kaada gelinaysaa password-kaada. Password-ka inta soo gelinaysaa inta gelinaysaa kadib register aa taabanaysaa. Wixii intaas ka dambeeya waaba iska diiwaan gelisba. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.